السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سود وهذا وواسك ضبروها قبل فارح ولا الكيس معو كي كيرال بشير بالله متانا هايين حاسة قرى سعيب كيس قرش ودرس كيس كنولا وراؤنا قرسي كوسا هاجا بكجا لكتي مع الشورية بناوين شنطة بغا بغوري سود وهذا رين نبضي نولول قعمهن إلهي إذن مقويو شير قرية عجلدا gaarsiiya beej walba iyo meel walba ku tuura idinko maasan aad iyo aad waa waaska waasyada weeye waa waaska duqbirow reer nabad iyo nolol waa rajada ummadda Soomaaliyeed weeye nabad iyo nolol dalka waxay u qabatay cid walba oo adduunyadan ku nool marxaati bay ka tahay oo Soomaaliya arrimaheeda danayso aad iyo aad dhamaantii soo dhawaada laba arrimood baan ka hadli rabaa arrin qusayso jaadka u Xasan Sheekh Maxamuud u fasaxay Kenya وريركيسا قندراس أهان وحري يوحنا كالله يا رئيس الوزراء عصب مدن حمزة ولا قليي حبس جوري لبدا الرماد أنا قد سيدا أي تهيبا حكت إدين استاجيا وحمن بلده وحنا مقريو حكت سيدا أصو أروريو أو صحضة يا نمد أصو قد بيا وحبدن بالله إذا كقرية وحبدن بيدونيان إنا يدبولان بين يدعب ضل كيني كصعد هل كمركا ومدحوين رضي الله عنه مدن محمد عبد الله فرماجة ضل كان وحكومي ومضى الصوماليين وحلوق بنيم توقع وحد عنا ومضى الصوماليين لتسجري إذا كحوق ضل كصوماليين مشار كود اللي سينجري آديات سودا وذا دمانتين شرقري عدلدا جارسية بيت والبا يميل بكتورة نقعد ديران مايان وانا كعد ديرنا هاي وانا كدراغد بدن هاي ما شاء الله لبدا الرمود يندون يعينان سيدا إذي كوكالا نقدقو دوغبرو سيدا الله سعوتان وإذن دول استاديا سيئناد ماشي جوكتان عمل أيو إذن دول جيا مركا كوبات وحان كوهر مريا رئيس الوزراء عصوب إدال كينا رئيس الوزراء عصوب إدال كينا مدن حمسة سيدا الله سعوتان روان بالا مقعابي نين udiyar sana oo magaraysa siyaasadda Soomaaliya ma u sarhayn waxa uu ahaa nin dhalinyaro kursi siyaasadeed oo hore oo lagu yaqaanay oo ka soo shaqeeyay haba yaraatee ma jirto marka laga reebo guddigii doorashooyinka ee Axmed Madoobaha Kismaayo joogo uu mar kale shaqeeyay kursi siyaasadeed oo uu qabto waa markii ugu horeysay ee uu xildhibaan noqdo si kadis ah yaa ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud uu u magacaabay ra'iisul wasaare sida la socono siyaasadda Soomaaliyeed inta badan waxay ku timaadaa مسلسل تحانا معناه قفك السياسي حل سنة قبريو وقف مرصوع صدي مركزو شقية حفيسة داس مرلسو شقية داد حفيسة داسي كاتليو حمزة ما وصل هين نلسو شقية كرسي أم حفيزك وهذا الجوجو رجي جوجر نلسو شقية ما وصل هين شقدي سوصل رئيسي معمول حفيز وعي أهيد أحمد مذوب الشقدي والله سوقتي سيدا الله سعوتان وحا مالمها اللي سوغيا او مقرسا ومدى الصوماليات اي دقاها اتاقيسا اي مغران قولها وزيرادة اي عصب سيدا الله سعوتان قولها وزيرادة الصومالية وحا اللوقب صدا بيلها الصوماليات سي اي ادقان او دولة نماذا الصوماليات امنان او اي كمديهين امنان يا هورتا قولها وزيرادة انت بدن مقرسا اي كسريسين وزيرada Soomaaliyeed inta badan marka laga reebo wasiirka maaliyadda wasiirka duulista hawada iyo wasiirka magaraysaay amniga gudaha inta kale Soomaalida waa lagu sasabaa waa beer qabowsi weeyadiyan marka waa saddexda wasiir oo aan sheegay shaqada ugu badan ee Soomaaliya hadda ka socoto wasiirka maaliyadda wasiirka magaraysaay duulista hawada oo diyaaradaha iyo laborada Soomaaliya quseeyo iyo wasiirka arrimaha gudaha oo arrimaha Soomaaliyeed ee gudaheeda ka dhax shaqeeya inta badan wasiirada kale inta badan wax shaqo ah oo ay dawladnimada ka qabtaan male waa un magacaaw iyo gaari la siiyo iyo staff la siiyo moogiye wax kale oo shaqo qabtaan male shaqada inta kale dawladnimada Soomaaliya waxa qabto wasiirka koobaad oo ra'iisul wasaaraha ah iyo madaxweynaha qaranka haday noqoto dhinaca ciidamada iyo haday noqoto dhinaca arrimaha dibadda labada xafiis oo madaxtooyada iyo prime ministerka kala qaybsan
aad sharaxaada dheer inaan ku sii dheeraado dooni maayo waxa maanta muqdisho ka taagan iyo xaaladdu meesha ay marayso ayaan doonayaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego wax yar baan doonayaa inaan dib idin yar celiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre markay baarlamaanka Soomaaliyeed ay xilka ka qaadeen ya horta xafiiska ra'iisul wasaaraha oo shaqeeyo u dambeeyay ra'iisul wasaarihii ka dambeeyay ee la oran jiray Roble Bahare ee la keenay muddo yar markuu joogay wuxuu isu bedelay nin qabiil oo qabyaalad iyo magaraysaay dagaal ooganimo iyo dhac iyo horor iyo hantida ummadda Soomaaliyeed in la boobo nin macnaha shaqadiisa ay noqotay ayuu noqday saad la socotaan maalmihii ugu dambeeyay ee Roble uu xafiiska joogay waa tii asaga iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Mooryaanta hadda xilka la wareegtay ee idaacadaha la taagnaan jireen afgambi baa dhacay afgambi baa dhacay watay maalin walba la taagnaayeen idaacadaha iyadoo arintaasi uga gowl lahaayeen in ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ee koofiyad casta ahayd ee ilaalinaysay xafiiska ra'iisul wasaaraha ee filla Soomaaliya ku sugneed in meesha intii laga wareejiyo la keeno ciidamo qabiil oo ku qabiila ninka la yiraahdo Roble Bahare madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo asagoo ka cararayo inay doorashada istaagto asagoo ka cararayo shaqadii doorashada ee socotay inay dib u dhacdo yaa waxa dhacday in loo fududeeyay Roble Bahare wixii markaasi uu codsanayay oo ahayd ciidamo qabiil oo ku reer ah in la keeno xafiiska sidii waataad ogeedeen lagu keenay ciidamo beesha ninka la yiraahdo Roble Bahare u dhashay in la keenay xafiiskii ra'iisul wasaaraha waa sidii aad ogeedeen ayay ku ilaalinayeen waataad ogeedeen ee magaraysa hoolkii doorashada hadda ka hor ciidamadaas galeen waataad ogeedeen Roble waa tuu ku faani jiray ciidamada macnaha asaga xafiiskiisa ilaaliso aad waxa dhacday in dawladii Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed u shaqeeysay ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ka in afgambi lagu sameeyay oo shisheeye Kenya haday yihiin iyo Imaaraad haday yihiin ay dawladnimadii iyo doorashadii Soomaaliyeed musuqmaasuq cad oo dhaqaale la bixinayo darkaysaan ay ku soo baxeen oo sidii kula wareegeen niman damul jadiid la yiraahdo oo Mooryaana oo nimankii waxbarashada xooga ku haystaya oo nimankii magaraysa suuqa Bakaara xooga ku haystaya oo nimankii dekada xooga ku haystaya ya dawladii Soomaaliyeed afgambi ku qabsaday waa taariikhdan aadii sheegaya waxaan rabaa inaan idinku keeno ra'iisul wasaaraha la magacaabay oo dad badan oo Soomaaliyeed ka sugayaan rajo oo dad badan oo Soomaaliyeed u hanqal taagayaan oo beelaha uu asaga u matalo u hanqal taagayaan meesha uu ku sugan yahay iyo xaaladda jirto inaan idin ifiyaan doonayaan oo doqbalowe aad nabad iyo nolol annagu runtaanu sheegaynaa xaqiiqdu siday taana wax u soo gudbinaynaa saad la socotaan Roble intuusan xafiiska ka tagin ee uusan xilka wareejinin ayuu magacaabay ninka la yiraahdo Mahasala oo isku jifa yihiin oo isku reer yihiin ayuu u magacaabay taliyaha sirdoonka qaranka Soomaaliyeed wataad la socoteen oo dubulo bartan ka soo gudbin jiray inuu revenge u sameeyo argos siyaasadeed inuu sameeyo wataan muddo dheer halka ka soo gudbin jiray waryareedu ku daal ra'iisul wasaaraha cusub baa la magacaabay xafiis waxa la keenay diyaarsan oo ciidamadu ilaaliyaan ay ku heeb yihiin Mahadsalaad ciidamada ilaaliya ku heeb yihiin ninka la yiraahdo Roble Bahare ciidamada xafiiska ilaalinaya ay ku heeb yihiin ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ra'iisul wasaarihi baa la magacaabay madaxweynaha Soomaaliyeed baa magacaabay wuxuu yiri waxa tahay ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed waxa la geeyay baarlamaanka Soomaaliyeed waa la ansixiyay waxa laga sugayaa inuu soo magacaabo حكومة ومدة الصومالية وشقيس حكومة دروانة دي فصيري انت بدن وحا كلا والصومالي قن انت هذي صدح ذا وزارة ذا قيمها بدن ووزارة الدوليس تهوذا إيه وزارة مقرر ساي مالية ده إيه وزارة مقرر ساي رماها كذا صدح ذا وزارة ذا أيا أقول شقاب بدن صدح ذا وزارة ذا بيدولد الصومالية انت بدن إنجن كيكون قاقضة آديات وعارب أمرك ومدة بنت اللو شيء إيه بروباغندا قبيلة سن إيه السوشيال ميديا إذا عضاك كسعته إيه بهدلك ورئيس الوزراء عصب كل جاي إن ريدين دول جايين دنيا رئيس الوزراء ياشد دلك الصومري إيه لو هيرجريه إن مدة الصوماليات وشقيان إيه لو أسحيان ومدة الصوماليات وحقوق قبطان رئيس الوزراء هو كدوية dadka waasaga ka dhashay ee beelha 4.5 ka ku matalo qaybta hoose oo soo ka dhashay waxa iyaga la weyn magaca ra'iisul wasaaranimada
آديات أنا قرين ماي مجا الرئيس الوزراء لماذا اللهم مجا عبيبة وحوي لا أيوة أنت سيكون قرع سيد لكنه ما تكروا فربنا رجع ودقن أو دقن لا سعاره دقن أو عبود واق دقن أو قرب هري دقن أو بكول دقن أو مقرن يسايب بدن يجيس كالصومال يدقن أي الرئيس الوزراء الرجال كسوجيسو إنه وحمد رقبتنا كسوجيسو آديات رئيس الوزراء الصوماليات wuxuu jira xabsi guri anigu idin maqarin maayo ha sheegin bay leeyihiin duqbirow ha ka hadli bay leeyihiin duqbirow laakiin duqbirow siday tahay buu arinta uga hadlaya sidee buu guri xabsi guri ugu jira ciidamadan aan hadda ka soo sheekeeyay waxay ku hareeraysan yihiin xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa macnaha sida caadada ah ee siyaasadda Soomaaliyeed looga bartay waxa weeye in ragga Soomaaliyeed ee gabdhaha Soomaaliyeed ee wax bartay inay warqad soo shahaadooyinkooda soo qaataan oo ay xafiiska ra'iisul wasaaraha imaadaan oo ay ballan qabsadaan oo uu ka akhriyo CV-gooda oo uu dhaho adiga waad u qalantaa adigana uma qalantid yay siyaasadda Soomaaliyeed muddo dheer ku soo caaramaanays laakiin ra'iisul wasaarahan waxa la geliyay xabsi guri looma ogolo muwaadin Soomaaliyeed oo doonaya inuu ummadda Soomaaliyeed u shaqeeyo oo wasiiradan uu ka mid noqdo inuu irida kasoo galay madaxtooyada oo la kulmay ra'iisul wasaaraha loo moogol ra'iisul wasaaraha waxa loo soo deynaya dad uu gacanta ku bikaab gareystay ninka la yiraahdo mahasalaad oo asaga amarkiisa intuu ku siiyay ciidamada ra'iisul wasaaraha ilaaliyo ku soo deynayaan ninka loo arkay inuu Soomaali yahay ninka loo arkay inay shahaadadiisu sareyso ninka loo arkay inuu ummadan u shaqeyn karo ra'iisul wasaaraha irida looga celinaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed arinta ayada waa u dul qaadan waay waana sababtay la hadda keentay in aan lagu dhawaaqin wasiiradii u shaqeyn lahaa ummadda Soomaaliyeed waxa dhacday subax kasta in ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed asagoo bahdilan oo laba wiil oo ku reer ah kaliya laba wiil oo asaga ku qabiila kaliya oo midna bahgari yahay midna ra'iis yahay يا مدحتويدا كليا ku ilaalay inta kale asaga ku hareeraysan ee aanan amarka ka qaadan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee aan amarka ka qaadan ciidamada booliska Soomaaliyeed ee amarka ka qaadanayo mooriyaanka la geeyay sirdoonka qaranka ee la yiraahdo mahasalaad ninkii hore ee ra'iisul wasaaraha aan jiray